Imtixaanku waa tijaabinta heerka waxbarashada iyo dulqaadka ardayda. Ardayda qaar ayaa cadaadis iyo culays u arka imtixaanka, halka kuwa kalena aysan sugi karin kuna raaxaystaan. Waxaad arkaysaa noocyo arday ah oo u dhaqmaya siyaalo kala duwan marka lagu jiro imtixaanka. Habdhaqankoodaas ayaana ka kala turjumaya heerka waxbarashadooda. Iyada oo aan ku saleeyay waayo-aragnimadeyda, waxaan maanta idinla wadaagi doonaa noocyada ardayda marka lagu jiro imtixaanka ee ku soo dhawaada mowduuceena maanta. soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Haddii aan hore u galo mowduuceena, ardaygan waxa uu xarunta imtixaanka soo galaa isaga oo aan haysan dhammaan ama qayb ka mid ah agabkii looga baahnaa imtixaanka sida qalin, calculator, mastarad, tirtira iyo wixii la mid ah. Bilowga imtixaanka ilaa dhammaadkiisana waxa uu ardayda ka deensadaa agabkaas. Marka la siiyo ee uu isticmaalo alaabtii, waa uu ilaabaa inuu soo celiyo agabkii ilaa qofkii amaahiyey uu ka weydiiyo. Ardaygan marka uu imtixaanka bilowdo ilaa uu ka dhamaado waxa uu su'aalo weydiiyaa waardiyayaasha iyo kormeeraha imtixaanka. Waxaad arkaysaa mararka qaar isaga oo weydiinaya su'aalo aad u fudud oo laga yaabo inuu garanayo, sida taariikhda maalintaas, macluumaadka lagu qoro bogga ugu horreeya imtixaanka sida magaca, ID numberka iyo wixii la mid ah. Inta badanna ardaygan su'aalaha badan darteed waxaa ku dhibsada ardayda kale ee imtixaanka kula jirta. Ardaygan waa arday jecel inuu caawiyo ardayda kale ka hor iyo inta uu imtixaanka socdo. Waxaad arkaysaa isaga oo wax baraya ardayda inta uusan imtixaanka bilaaban, wuuna ku faraxsan yahay inuu caawiyo ardayda. Laakiin cilada uu leeyahay ayaa ah in marka uu imtixaanka waqtigiisa gabagaba yahay, uu si degdeg ku jiro ku qoro jawaabihiisa. Mararka qaar ayaana inta waqtigu ku dhaco warqadda imtixaanka laga qaadaa, sababtoo ah waxaa waqti badan uga lumay caawinta ardayda kale. Ardaygan inta badan jawaabaha imtixaanka wuu garanaya, laakiin marka ardayda kale weydiiyaan waxa uu bixiyaa jawaabo khaldan. Wuxuuna jecel yahay in dhammaan ardayda kale ay guuldareystaan ama ugu yaraan ay dhacaan meel isaga ka hooseysa. Hadafkiisana waa inuu noqdo ardayga ugu sarreeya fasalka. Ardaygan ayaa ka mid ah ardayda ugu liidata dhanka tacliinta, waxa uuna waqtigiisa inta ugu badan ku bixiyaa raadinta qish noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale ma ahna arday qabiir ku ah qishka, wuxuuna mar walba ka baqaa in lagu qabto. Marka uu imtixaanka u soo socdo, waxa uu had iyo jeer soo qaataa waraaqii uu qish ku soo qortay, buugaagta maadooyinka maalintaas la galayo, isaga oo raba inuu la galo si uu uga qisho, iyo telefoonkiisa uu ku soo diyaarsaday qish. Laakiin nasiib darro, 90% waa uu ku fashilmaa qorshihiisa oo waardiyayaasha imtixaanka ayaa ku qabta. Haddii ay u suurto gasho inuu la galo hubkiisa, qishka ayaan ka wadaay, waxa caqabad ku noqotay si uu uga faa'iideysan lahaa, waayo khibrad uma lahan sida loo qisho, sida ardayga xiga ee aan ka hadli doono. Ardaygan waxa uu leeyahay kalsooni sare marka ay timaado qishka, waxa uuna raadiyaa habab kala duwan oo uu ku khiyaami lahaa waardiyayaasha imtixaanka si kasta oo ay u adag yihiin. Sidoo kale waxa uu leeyahay xirfado horumarsan oo uu kaga qoran karo jawaabaha ardayda kale ee uu aqoonta ku tuhmayo. Inkastoo ardaygan uusan ku wacnayn waxbarashada, haddana mar walba waxa uu la yimaadaa dhibco aad u sarreeya, waxaana taas ugu wacan xirfadda uu leeyahay qishka. Saaxiib, adigan daawanaya haddii aad tahay arday ama aad ahayd, waxaad qaybta faallada nagula wadaagtaa nooca aad tahay, runtana ka sheeg. Mahadsanid. Ugu dambeyn, waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda inay naftooda ku kalsoonaadaan oo inta qish ay raadin lahaayeen ka faa'iideystaan awoodda xad-dhaafka ah oo ay leedahay maskaxdooda. Sidoo kale imtixaan waxa u baran. Waxaa xaqiiqo ah haddii aad imtixaan wax u barato, wixii aad baratay waxa ay ku eg yihiin maalinta uu imtixaanka ku dhamaado. Saaxiibayaal, mowduuceena maanta intaas ayuu ku eg yahay. Haddii aad ka hesho muuqaalka, like saar. Sidoo kale la wadaag saaxiib aad og tahay inuu leeyahay mid ka mid ah sifooyinka aan soo sheegnay. Mahadsanid. Inta aan ku kulmi doono mowduuceena xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.